qaatibay ka ahayd ninkii waxaan ku ninka qofka yaqaano gabadha la xiriirta ay la soo xiriirto okay ninka markaan baraha bulshada soo geliya ayaa dad badan oo Soomaali ah oo Muqdisho jooga dhalinyaro odayaal dad adeer ehel u ah asaga dad is yaqaanaan dad dibadda jooga gabdho 10 gabdhood maanta ila soo xiriir gooni ah ma fahantay waxay dadka dhan ii sheegeen inuu ninka ilmaha ka qaato inuu asaga yahay horta dadka kugu sheegay waa sax waa la tusay waa arkay Facebook-gaaga waxa soo dhigtay wiilka oo cunuga iga qaatay mise gabadheeda aabaheed waa isaga asaga waxaan kaloo halkaan rabaa inaan ka sheego qabiilani wax igama sameynin qabiiladii la aflagaadeenin aniga qabiilka wuxuu ka kooban yahay dad aad u tiro badan qabiil wax igama sameynin shakhsiyaad ayaa wax iga sameeyay ayagana ala qalbigooda wanaag ha tusiyo markii aan qabiil la aflagaadeenin yaana qabiil wax laga sheegin qabiilna wax moosan iga sameynin sidaas u soonaada assalaamu calaykum dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel badnida ka joogtaan waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii danqatay dhibaatadeeda iyo inta ka hadashay arrinteeda TikTok-leeda YouTube-leeda Facebook-leeda dhammaan waad ku mahadsantihiin mid kale dadka qaar ayaan maqlaayay oo soo wacay la soo xiriir oo dhaay magaari bood gareey aniga marmood gareenin ciidankay anaa xiray soo wajira awgeed haddana anaa dib ugu soo noqday mid kale ummadda qaar waxay dhahaan waa loo hanjabay cid bani aadan iyo hanjabin waa xanuunsaday haddana waa fiican alxamdulillah وانا ما تسنتين دمان انت ربتيني الى حريرته انت اللي سو حريرتي دمان ومد الصومالي الله سبحانه وتعالى اجري حسنات انا سوكو من كرنا الله يدين قصيه وانا في عنها وانا ما تسنتين عنقي وان السيا ذن اكل تجينا ذن xoog oo liiga qaaday cunugeyga wax xasuusta maalinta cunugteeda la qaadayay waa soo baxsaday ani cunugteeda waa soo qaatay waa liiga daba imaaday waxa tay guriga abaayo liiga daba imaaday cunugta xoog liiga qaaday hooyadiisa imaatay hooyadiis markay imaatay cunugteeda qaaday dan saasa cunugta liiga qaatay ani okay cunugta meeqaas inay jirtay marka laga qaaday awrada 4 bilood jirtay waa liigu qalabtay cunugta 4 bilood jirtay markii laga qaadanayna soo nuugaysay dhig la'aan haysa xataa waa wacay hooyadii soo joogto hooyo waa ku kor ooy waxa dhahay hooyo gabadhaadii ah cunugta 4 bilood jirtay hooyo waa ku bariya xataa naaska inta ka goonaay ee ogolaada inaan haayo waxay dhahday inta ka sheegana ma fiicna laakiin waxay u jawaabtay eray aad u xun oo qofka bani aadamka qalbigiisa dhaawacayo dhowr jeer isku day kama harin waa wacay marka dambe waxay u jawaabtay waxa dhashay waxa gudooma qaaniye lambarkayga inuu wadgali وحرسا يقول كتير حبر مع سا يقول كتير السلام عليكم دمان أمد الصوماليات ميل بدنو كجوكتان waxaan halkaan ugu mahadcelinayaa dhammaan intii danqatay dhibaatadeeda iyo inta ka hadashay arrinteeda TikTok-leeda YouTube-leeda Facebook-leeda dhammaan waad ku mahadsantihiin mid kale dadka qaar ayaan maqlaayay oo soo wacay la soo xiriir oo dhaay magaari bood gareey aniga marmood gareenin ciidankay anaa xiray soo wajira awgeed haddana anaa dib ugu soo noqday mid kale ummadda qaar waxay dhahaan waa loo hanjabay cid bani aadan iyo hanjabin waa xanuunsaday haddana waa fiican alxamdulillah وانا ما تسنتين دمان انت ربتيني الى حريرته انت اللي سو حريرتي دمان ومد الصومالي الله سبحانه وتعالى اجري حسنات انا سوكو من كرنا الله يدين قصيه وانا في عنها وانا ما تسنتين waxaan kaloo halkaan rabaa inaan ka sheego qabiilani wax igama sameynin qabiiladii la aflagaadeenin aniga qabiilka wuxuu ka kooban yahay dad aad u tiro badan qabiil wax igama sameynin shakhsiyaad ayaa wax iga sameeyay ayagana ala qalbigooda wanaag ha tusiyo markii aan qabiil la aflagaadeenin yaana qabiil wax laga sheegin qabiilna wax moosan iga sameynin sidaas u soonaada asjarobkas waan jeclaay suna caaway wax xasuusta tan hooyadii waxay dhahday intay dhimaheed waxa ka haboon in la siiyo saddeexdeed aniga mid isku guulsanay حاتري الصنبة ربتي إلى عبتني كدرادي استعارة أو قبتي وابع عوي بها وهو إذا وجه تدك وجدت قال حتى وأنتهي كمتين سوقرا يقول سنت وعبتي وارم سنت لشيء أو عبي سوق هبرين وحر يسوق وحلا ربا إلى نفهمه أوكي قفك واجعلان كرتا قف واحد على ذو جمهورين
qof isku dila adigu uguma horreynin laakiin shaydaanka anagu islaam baan nahnay alxamdulilah alshukrulah dad ilaahay iimaan geli baan nahnay iimaan iyo islaamnimadaas aan celinaysa ma ogi wax badan baa anagu gali lahayn dambi runtan kuu sheega ilan biloo aadina la yahay okay ninkan waa jeclaatay waxaan rabaa inaan fahmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذن سلامي هرتا شلتو فيسبوك لايف شلت هرتا وانسوق قال إن أنت مقالة ذا وانقاتي هرتا إن أنبا إلى صحريري وحي يقولي إن أنت شرمركي ديجنتا إن رنتي سنة ورمها ينبين شيء الله يعلم إله بيقوك wuxuu yiri horta inta cid uma joogto jarmalka cid u joogta ma jirto yiri inta ma joogto waa kaligeed sheekadana waa wax jira wiil sadeed baa in ilmihi yara ka qaadatay marka aan waxaan idin leeyahay Soomaali Maxamed ay gabadha horta loo kaco hal caawiyo TikTok-geedina hawada oo reer uu ka baxay leefka kadib hawada laga saaro u malaynaya way awalba ugu jiray maxaa because Facebook iyo discomment ma TikTok way Facebook dadka way si wala si bafaafinaya marka waxaad ku codsan bal gabadhii sidii u ooynaysay sidii u dhibaateysnayd ha ka hadhina raadiya ana xaggayga waan ka raadinaya idinkuna xaggiina ka raadiya una soo duceeyay ilaahay ka korbada ka qaado